رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ودرسيني أفراد كمدها دروستي كصاب سنيد ثمرات الأعمال الصالحة أعماش وناكسن يمرها قفك مسلم كاسمية وكقو صنيو. درسينا waxa uu ku saabsan yahay thamaraatu qiyaam al-layl salaatu laylka faa'iidooyinka ay u leedahay qofka muslimka ah iyo midhaha uu ka goosanayo adduun iyo aakhiraba. salaatu laylku waa salaad sunno muakkada ah, sunno la adkeeyay. waqtigeedu wuxuu bilaabmaa salaada cishaa marka uu qofka muslimka ay tukado, waxaanu joogaa waqtigeedu ilaa waagu u bariyo. waagu markuu bariyo ayuu waqtigeedu baxay. dadkuna waxay u qaybsamaan laba qaybood: qof u badinaya oo ku kalsoon inuu habeenka xaggiisa dambe salaatuleylka u kici karo, iyo qof ay ula badan tahay habeenka qaybtiisa dambe inaanu toosi karin. qofka markaa ka baqaya habeenka qaybtiisa dambe inuu toosi kari waayo, waxaa u fadli badan salaatuleylka inuu tukado markuu salaada cishaay ka baxo. waana sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kula dardaarmay saxaabada qaarkood oo uu ka mid ahaa abu hureyre. wuxuu ii dardaarmay uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam an uutira qabla an anaam, inaan witriga tukado inta aanan seexan. haddii qofku uu ku kalsoon yahay oo u badinayo inuu habeenka qaybtiisa dambe salaatuleyl u kici karo, habeenka 3 meelood marka loo qaybiyo meesha dambe ayaa u fadli badan. waqtu an-nuzul al-ilahi, waqtiga ilaahay subxaana wa tacaala samaa dunyaa uu soo dego, suu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay. ilaahay waa addoomihiisa ku leeyahay man yas'alunii fauctiyahu, yaa wax weydiisanaya oo aan siiya. man yadcuunii faastajiiba lahu, yaa i baryaan ajiiba. man ystakfirunii faakfira lahu, yaa dembi dhaafi weydiisanaya oo aan u dembi dhaafaa. salaada la dhaha salaatuleylku sanadkao dhan bay mashruuc tahay oo la jideeyey oo la sunneeyey. bisha ramadaanna si gaara ayaa sunanimadeeda loo adkeeyey. waxaana laga dhigay bisha ramadaan salaatuleylka mid lagu tukan karo jamac, ama jamac in lagu tukada ay tahay sida fadliga badan. midhaha ay leedahay salaatuleylku waxaa kow ka ah salaatuleyli afdalu salaati bacda alfariida. wax allaale waxaa salaad la tukado waa salaada u fadliga badan marka laga yimaado salaadaha faralka ah, oo salaad farala baa u fadli badan. salaada xagga fadliga ku xigtaana waa salaatuleyl. abu hureyre wuxuu ka wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yihi afdalu siyaami bacda ramadaana shahru llahi almuxaram. soom waxaa u fadli badan soomka ramadaan dabadii soomka la soomo bisha ilaahay muxaram la yidhaahdo. wa afdalu salaati bacda almaktuubati salaatu leyl, rawaahu muslim. salaada faralkaa dabadeed waxaa u fadli badan salaatuleylka. waa midhaha koobaad oo ah qofka salaadaa tukadaa inuu tukaday salaada u fadli badan marka salaadaha faralkaa laga yimaado ee salaadaha faralkaa kusoo xigta xagga fadliga. midhaha labaad, fiiha sharafu lmu'min. qofka mu'minka salaatuleylku sharaf bay u yeeshaa adduun iyo aakhiraba. kayrkiina way ka hormarisaa, dadka uu la filka yahay way ka sarraysiisaa salaatuleylku. sahl ibnu sacad wuxuu yihi jaa jibriilu ilى الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam. malaku jibriil baa rasuulka u yimi. malaku jibriil amar ilaahay buu ku socdaa, waxaanuu sidaa fariimo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka sido. faqaala ya muxamed cish maa shiئta fainaka meyit. nebi muxamedow, inkastoo aada noolaato cumrigaagu u gaadho, kii dhimanaya baa tahay, geeri ku dambaynaya. waaxbib man shiئta fainaka mufaariqu, ciddaad doontana jeclow,
dadkan adduunyada jooga ka mid a waxaad ogaataa inaad ka tegi doonto geeri idin kala kaxayn doonto mid horeeyaba waanay dhacday taas nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii aadka u jeclaa xataa naftooda ka jeclaa cumar ibnu khataab uu ka mid ahaa geeri baa kala kaxaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo inantiisii faatima radia allahu canha oo aada isu jeclaa geeri baa kala kaxaysay wacmal maa shita fainaka majziyun bihi wax allaale waxaad doonaysid samee khayr iyo shar waa lagugu abaalmarin doonaa sida ilaahay subxaana watacaala uu yihi faman yacmal mihqaala darati khayra yara waman yacmal mihqaala darati shara yara waclam ana sharafa almu'min qiyaamu leyl waa halka xadiidka aynu uga jeedno waxaad ogaataa qofka mu'minkaa sharaftiisu waa qiyaamu leylka waa inuu habeenkii salaatuleyl tukado wacizuhu istignaauhu can innaas cizadiisa iyo qiimihiisu iyo sharaftiisuna waxay ku jirtaa dadka inuu ka kaaftoomo waayo su-aasha iyo baryada iyo dadka in wax la weydiistaa qofka way dulaysaa sharaftay ka qaadaa iyo qiimaha waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay gacanta wax bixinaysaa inay tahay gacanta sarraysa gacanta wax qaadanaysaana inay tahay gacanta hooseysa arrinka saddexaad salaatu leyl waa min acdami asbaabi dukhuuli اljanna qofka ilaahay subxaana watacaala janno geeye naarna ka badbaadiya waa qof guulaystay ilaahay jannada gelitaankeeda asbaab buu u yeelay asbaabta kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofka muuminkaah salaatuleyl inuu tukado cabdullaahi bnu salaam saxaabiga la idhaahdo asalkiisa yuhuudi buu ahaa uu islaamay waxaanu ka mid noqday dadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyagoo nool uu jannada ugu bushaareeyey wuxuu joogay magaalada madiina markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo muhaajira uu soo galay magaalada madiina wuxuuhi markuu rasuulku madiine yimi dadkii oo dhami waxay u yaaceen halkii rasuulku magaalada ka soo gelayay dabeetana dadkaasaan raacay buu ihi markaa waa yuhuudi falama tabayantu wajhahu caraftu ana wajhahu laysa biwajhi kadaab rasuulka calayhi salaatu wasalaam wejigiisii markaan indhaha ka buuxsaday ee si fiican aan u arkay waxay i caddaatay wejigiisu weji beenaale inaanu ahayn oo qofka beenta sheega beentu wejigiisay ku qoran tahay oo ay ka muuqataa fakana awala shayin samictuhu takalama bihi an qaal wixii u horeeyey ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine markuu soo galay uu ku hadlay iyo talooyinkii qiimaha lahaa ee dadka u jeediyey waxay ahayd inuu yidhi yaa ayuha annaas afshu الsalaam waطcimuu الطacaam wasiluu اlarxaam wasalluu bاlleyli wاnnaasu niyaam tadkhulu اljannata bsalaam rawahu tirmidi dadow salaanta faafiya oo qofka muslimka ah ee qofka muslimkaee ka soo arbaxa ha salaamo kala salaamaanaha ka jawaabo waa la isku jeclaanaya isjeclaashahaasina iimaanku ka midi iimaankana jannada lagu galaa waطcimu الطacaam dadka raashinka siiya oo cibaadaadka aadka u fadliga badan niyo wanaagsan hadday raacdo wasiluu larxaam qaraabadiinana xidhiidhiya wasalluu bاlleyli wاnnaasu niyaam habeenkii tukada iyadoo dadku ay hurdaan saacadaha dambe dadka badankoodu ay hurdaan salaatuleyl u kaca intaa haddii la sameeyo abaalmarintu maxay noqonaysaa tadkhulu اljannata bisalaam jannadaad nabadgelye ku geli doontaan manaa cadaabkaad ka badbaadi doontaan oo idinkoon cadaab soo marin ayaad jannada geli doontaan waayo acmaasha gaar ahaan salaatuleylku sida biidn اllahi subxana watacaala inuu axaadiida ku arki doono waxyaabaha qofka dembiga ka celiya bay ka mid tahay ee qofka ka dhiga qof muslima oo mustaqiima oo toosan qofka sakda dhexe ee nafta hurdada aadka ay u jeclaysanayso ee dadku ay wada hurdaan ilaahay daraaddii u kacay dembiyada ilaahay daraaddii buu uga tegaya abu malik alashcari wuxuu ka wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu yihi ina fi ljannati gurafa yuraa daahiruha min bainiha wa baطinuha min daahiriha jannada waxaa ku yaala qolal guryo
guryahaas waa guryo aada u qurux badan qofka gudaha joogaa dabaduu arkaya qofka dabadda joogaana gudaha ayuu arkaya maanta gaar ahaan casrigan waa nooca guryaha loo jecel yahay guryaha ayuu ilaahay u diyaariyey oo jannada uga dhisay acaddaha allahu tacaala liman acama aطacaam guryaha ilaahay wuxuu u diyaariyey qofka dadka baahan raashinka siiya wa alaana alkalaam hadalkana dabciye oo hadal naxariisi ay ku jirto dadka kula hadla wa taabaca siyaam soomkana farabadiya soomkiisu inta faralka oo qura aanu ku ekayn faralka markuu dhameeyo bisha ramadaan ay u dhamaato soomam sunnaa buu bilaabaya 6 shawaal ku soomaya maalmaha kale ay ka mid tahay yawm caashuraa buu soomaya yawm caraf buu soomaya wahaakada waafsha salaam salaamtana aada u faafiyo oo dadka muslimiintaa salaama waa cibaado dadka badankoodu aad ay u fududaystaan laakiin guryaha jannada ka dhisan ayaa lagu helayaa suurad sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wasallaa billayli wannaasu niyaam guryaha wuxuu ilaahay u diyaariyey qofka salaatuleyl tukada habeenkii iyadoo dadku ay hurdaan dadka arrinka noocaasiya kaga soocma oo kaga hormara imaamu axmed iyo tirmidi baa wariyey arrinka afraad ee midhaha salaatuleylka wa an yakuna alcabdu aw yakunu alcabdu bisalaati leyli min cibaadi araxmaan addoonku ama qofka muslimka ahi salaatuleylka wuxuu kaga mid noqonayaa addoomaha ilaahay uu sida gaarkaa u sheegtay iyadoo ilaahay addoon loo wada yahay kuwa ilaahay uu ku sharfay uu ku maamuusay inuu yihi waa addoomahaygii wacibaadu الraxmaan aladiina yamshuuna calى alardi hawla weliba magaciisa araxmaan ilaahay subxaana wa tacaala u tiiriyey addoomaha ilaahay sifaat buu u sheegay sifaatkaasi oo acmaal wanaagsan iyo dhaqamo fiican iyo akhlaaq saraysa waxaa ka mida wاladiina yabiituuna lirabbihim sujada waqiyaama waa kuwa habeenkii baryaaya iyagoo ilaahay u sujuudsan ilaahay u taagan oo ilaahay u tukanaya famin صifaati cibaadi الraxmaan qiyaamuhum bاlleyli lilaahi rabi اlcaalamiin صifaatkooda waxaa ka mida in ilaahay subxaana wa tacaala habeenkii ay u tukadaan oo lilaahi ay u kacaan marka liiskoodu ku biirayaa addoonka salaatuleylka ku dadaala arrinka shanaada ka mida midhaha salaatuleylka waa min asbaabi ziyaadati اliimaan qofka inuu iimaankiisu kordho oo iimaankiisu uu dhammaystirmo ayuu ka faa'iidayaa salaatuleylka ilaahay subxana wa tacaala waa ka yihi fi suurati sajda inamaa yu'minu biaayaatina aladiina ida dukiruu biha kharuu sujada sabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun waxaa si dhaba aayaadka ilaahay u rumeeyey kuwa aayaadka ilaahay marka lagu waaniyo waantoobaya marka aayada ay sujuudi ku jirtaa ay soo marto ilaahay subxaana wa tacaala u sujuudaya kuwa ilaahay subxaana wa tacaala u tasbiixsanaya kuwa ilaahay ammaanaya kuwa intaasoo camalo wanaagsanba samaynaya iyagoo kibir iyo isla weyni ka maran oo camalka wanaagsani sabab ugu noqon maayo inay kibraan oo ay isu bogaan oo ay iscajabiyaan khalqiga kalena hoos ay u eegaan oo ay xaqiraan sifaadkooda ilaahay muxuu ku daray kuwa aayaadka ilaahay si dhaba u rumeeyey ee iimaanku u dhammaystirmay tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic dhinacoodu wuxuu ka kacaa oo uu ka dheeraadaa habeenkii marka dadka dhinacooda uu dhulka qabto gogashay ka kacaan iyagu salaatuleyl bay u kacaan yadcuuna rabbahum khawfa waطamaca ilaahay bay u tukanayaanay caabudayaan maxaa ku kalifaya arrinka noocaas waa baqa ilaahay subxana wa tacaala ay ka baqanayaan iyo rajo ay ka qabaan ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo naxariistiisa arrinka lixaada ka mida midhaha salaatuleylka salaatuleyl tukafiru sayi'aat wa tanhaa can ilaahaam addoonka salaatuleylka tukada ilaahay wuu ugu dembi dhaafaa salaatuleylkuna sideedaba iyadaaba addoonka dembiga ka celinaysa oo addoonkii iimaankiisii baa kordhaya xidhiirhka uu ilaahay la leeyahay baa xoogaysanaya
istiqaama iyo toosnaan ayuu ka qaadaya addoon wuxuu noqonayaa dembiyada ka fog haddii dembi uu ka dhacana si degdega markiiba isu qabta oo dembiga ka soo noqda abu umaama saxaabiga la dhahdaa wuxuu yidhi qaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam calaykum biqiyaami اleyl war salaatuleylka ku dadaala fainahu da'bu saalixiina qablakum dadkii wanaagsanaa idinka horeeyey dhaqankoodii iyo caadadooday salaatuleylku ahayd markaa dhaqankoodii yeesha oo ku dayda wahuwa qurbatun ilaa rabbikum salaatuleylku ilaahay bay idin dhoweynaysaa wamukafiru lisayi'aat salaatuleylku waa mid dembiyada baabiinaysa oo addoonka lagaga dhaafayo lagaga masaxaayo wamanhaatun lilaathaam waa mid qofka tukada dembiyada ka celinaysa salaada ayuu ilaahay guud ahaan sheegay addoonka inay xumaanta ka celiso ina asalaata tanhaa can alfaxshaai walmunkar wa salaada qofku uu si saxa u tukadee qalbiga iyo xubnahaba uu ka tukado nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu kaga daydo qalbigiisa iimaan gelisa iyo alla kacabsi iyo khushuuc taasaa xumaanta ka celisa salaatuleylkuna si gaaraabuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay addoonka dembiga ay ka celiso tirmidi baa xadiidkaa wariyey sanadkiisuna waa xasan arrinka toddobaad ee ka mida midhaha salaatuleylka qofku markuu salaatuleyl tukado qur-aan buu akrinaya oo salaadaasi qur-aan bay u baahan tahay qur-aankaasi qofka wuxuu dawo uga noqonaya khafladda oo qof habeenkii oo dhan markuu seexday ilaa waagu uu ka baryey mar qura ilaahay aan xusuni oo ilaahay aan soo hadal qaadini waa fii kafla waa qof moogani ilaahay kaga sugan wey lihaada buu sheegay nebigu calayh salaatu wasalaam inuu shaydaanku usoo kaadi tago xadiidka imaam muslim uu wariyey dukira cinda nabiyi calayhi salaatu wasalaam rajulu naama xataa asbax waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo sheegay nin seexday oo habeenkii oo dhan hurdo ku jiray ilaa waagu u baryey faqaala calayhi salaatu wasalaam daka rajulu baala shayطaanu fii udunayh kaasi waa nin shaydaanku labada dhagoodba uu kaga kaajay salaatuleylku qofka khafladda iyo mooganaantaasay dawo uga noqonaysa oo qof habeenkii intuu kacay ilaahay xusay oo qur-aan akhriyey oo rabbi subxaana watacaala baryey buu noqonaya wuxuu addoonku noqonayaa qaanit lirabbi addoon ilaahay u khushuuca oo ilaahay subxaana watacaala isu taaga wuxuu noqonayaa addoonka salaatuleyl u kaca qur-aan akhriya fi salaati leyl addoon xaasiliya oo habeenkaa loo qoro qanaatiir min alajr ajara aada iyo aada u waaweyn oo tiro badan cabdullaahi bni camr ibnu caas wuxuu ka wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yihi rasuulku man qaama bicashri aayaatin lam yuktab min alghaafiliin qofka salaatuleyl u kaca oo 10 aayadood oo qura akhriya 10 aayadood oo qura ayuu ku tukaday lama geliyo qofka laguma daro liiska kuwa ghaafiliinta ilaahay moogan qof habeenkii ilaahay u tukaday oo xusay ayuu noqdaa waman qaama b100 aayatin kutiba min alqaanitiin qofka 100 aayadood habeenkii ku tukada salaatuleylka waxaa lagu daraa liiska qaanitiinta kuwa ilaahay adeeca subxaana watacaala ee ilaahay u khushuucsan ee rabbi subxaana watacaala u hogaansan waman qaama b1000 aayatin kutiba min almuqantiriin ka salaatuleyl u kaca oo 1000 aayadood akhriya intaa uu salaatuleylka tukanayo waxaa lagu daraa kuwa ajarka faraha badan ee waaweyna buuraha laaleeg kuwa shaqaystay ee kasbaday ayaa lagu daraa abu daawuud baa wariyey arrinka sideedaada kamida midhaha salaatuleylku addoonka salaatuleyl habeenka u kacaa ammaanta ilaahay buu helaya ilaahay baa ammaanay addoomaha salaatuleylka tukada cibaad الraxmaan inay ka mid yihiin buu sheegay wاladiina yabiituuna lirabbihim sujada waqiyaama ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamay kuwa salaatuleylka tukada iyo kuwa aan tukani inaanay marnaba sinayn kuwa salaatuleylka tukadaa aad ay uga darajo sareeyaan kuwa aan salaatuleylka tukan
صفات بدن أو وناكسنا وصلاة الليل كقفك كلفاية إلهي وشاقي قال الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ميي سميهين كهبينكي كعاية إلهي ستاقاية ساعدها بينكي مرنا إلهي سجوداية مرنا إلهي سبحانه وتعالى أتاقا يحذر الآخرة يدا وحا كلفايا وياي بقاو كبقانا يا آخرة حالدها أدق iyo cadaabka dadka qaar kood ku habsan doonana uu ka digtoon yahay wayarju rahmat rabbih iyada waxa salaatu leel ku kalifaya uu yahay xariista ilaahay uu rajeynayo uu doonayo wala hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun isku garasho xataa maaha oo ilaahay isku si uma yaqaanin oo aqoonta ilaahay ay u leeyihiin isku mid maaha salaatu leel u kacaya tukanaya iyo ka salaatu leel aanu kacayn لهذا بإلهي وحتى هذا ميسمين الذين يعلمون والذين لا يعلمون وأعظم العلم وأعلاه وأفضل العلم بالله علم وحاوي وأسر رأي وأفضل لبضان علم قادونك إلهي وياشو فمن قام لله في الليل فهو عالم بالله كإلهي سبحانه وتعالى سقاها دحيدتك أي هرددا كتشران إننا عود دولك وكل جيهاي مستياشي وحي هويه هنا يكوهس جيران كإلهي ستاقي خوفا من الله ورجاء لرحمته بقى إلهي وكبقى يا أوقي يرجو الرجين رحمة إلهي يكان سيدا إلهي إلهي اسكو سيو ما يقانين بل إلهي وحو الشيء حتى إنان اسكو عقلي هاي وقفك صلاة الليل كأوكع ويامد كعقلي بدن كان صلاة الليل كأوكعين إنما يتذكر أولو الألباب وحوان توبة ووحو مقلي ووحو أركي وحكو قاتا قفك عقلي قاله صلاة الليل سيو قفك أقبطيمه وأقول نقضي ميت جوكتية وأي جوكتين بأوباهانت نبي عليه الصلاة والسلام وكي عبد الله كيري لا تكن مثل فلان فإنه كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل عبد الله وان كلت لنا يا هبل نينك لراضها الله من نقنين ومحو سمي هبين كيبو صلاة الليل وكي جري صلاة الليل كيبو كتغي سيو قفك او جوجتay wuxuu baahay marka hore inuu naftiisa la jihaado oo naftiisa uu kula dadaalo oo iyadoo naftu aan macaansanahayn ee culays u aragta naftiisa uu ku khasbo marka dambe way macaansan doontaa waxay yiraahdeen dadkii hore wanaagsanaa qaar kood kaabatu qiyaam al-layl 20 sana 20 sanadood ayaan dhibaato iyo culays ka dareemayay salaatu leylka وهذا نفتح كو عدادينيي ومرنا بآن دين وتلذذت به 20 سنة لباتن سنضودنا وان كو راحيست ونفتي با انتي لقب ستي معانستي وقود كذا وكمد نقضي ومرنا بآن دين كراهين با صلاة الليل وحمله هذا كمدي وحيابا لقا قادو نور إلهي وقفك قلبي جيس iyo wajigiisaba nuur saaraya xasan al-basri tabici haba waxa lagu yiri ma balu al-mutahajjidin bil-layl min ahsani nas wujuha maxay ku dhacday kuwa habeenkii hurdada ka kacay salaatu layl u kaca inay dadka kuwa ugu wajiga fiican ay noqdaan faqala li'annahum khalaw bir-rahman fa'albasahum min nuri waxa ay la khalwoodeen wa habeenkii iyagoo kalidooda ay hor istaageen الله الرحمن كا يتنا إلهي وحو هويي ودشو دا وصاري نور كيسي صلاة الليل كا وحيابا قفك كعليا وقود دارانا كالدبرة كعليسيا والدنبية إبراهيم بن آدهم زاهد كي لورن شري نبا ويمي نكا سحر إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء صلاة الليل كيبا نسقود تاقي لواي ما بقى ودبا بل عذر كاوحن اسكجد وياي شك فقال لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل مالنتي إلهي عاصي هذا مالنتي معصية اسكيل على الصو إلهي بها هبينكي كوكعين دونه هرتيس كوتشوتشين دونه فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف
inaad habeenkii ilaahay hor istaagtaa waa sharafta ugu weyn bay ka mid tahay. waalcaasi laa yastaxiqu dalika sharaf, qofka ilaahay caasiyeyna sharaftaasi ma mudna. وqاla الفضyل بن عiyaad رaحimه الlah إida lam تqdir عalى قiyam الleyl وصiyaam النahاar faaclam anaka maxruum mukabl kabaladka khaطi'atuka. haddaad maalintii soomi kari weydo, habeenkiina salaatuleyl aad u kici kari weydo, waxaad ogaataa inaad tahay qof khayrkii laga hor istaago laga qadiyey. waxaad ogaataa inaad tahay mid xidhxidhan, waxa ku xidhayna uu yahay dembigaaga iyo khaladkaaga. marka ilaahay u toobadkeen si ay cibaadaadkaasi kuugu fududaadaan. culimada qaarkoodna waxaabay sheegeen arrinkaa si dhaba inay u taabteen. sufyaan athawri wuxuu yihi xurimtu qiyaama alleyli 5 ashhur bisababi danbin adnabtuhu. salaatuleylkaan tukan jiray buul muddo 5 bilooda ayaan salaatuleylkii isugu taageli waayay. sababtuna maxay ahayd? hal dembi oo aan galay. walaalayaal, bishii ramadaan baynu ku jiraa. si gaara ayaa salaatuleylka bisha ramadaan nebigu inoogu dhiiri geliyey. qaala calayhi الsalaaةu wasalaam man qaama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbi. qofka ramadaan salaatuleyl u kaca oo ilaahay hor istaaga isagoo rumaysan ilaahayna ajar kaga doonaya, waa loogu dembi dhaafa. وqاla عalayhi الصalaaةu وaسalaam man qaama maca alimaami xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyla. qofka imaamka la tukada salaatuleylka, taraawiix dhe, tahajud dhe, waa salaatuleyl magaca doona siduu bixi, ilaa uu imaamku salaadaa dhammaynayo. waxaa loo qoraa qofka habeenka o dhan salaad u taagnaa ajarka uu helo kale. nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam salaadan aad buu ugu dadaali jiray, naftiisana waa ku daalin jiray, laakiin qalbigiisa ayaa ku raaxaysanayay. ilaahay buu subxaana watacaala ugu mahadnaqaayay salaada markuu ilaahay u dembi dhaafay. maanta waad aragtaan oo salaada maqrib inta masaajidada ku tukataa iyo salaatu taraawiix inta ku tukataa isuma dhowo, aad bay u kala badan yihin. waxaa muuqata dadka badankoodu salaada inaanay qadarkeedii siin, qiimihii ay lahaydna aanay gaadhsiin, haniimadii ku jirtayna aanay ka faa'iidaysan ee ay dayaceen. aynu ku sabirno salaatuleylkaas habeenadaasi kooban sida jamaca loo tukanayo, naftana aynu kula jihaadno si ay ula qabsato oo habeenada kale ee sanadkana ilaahay subxaana watacaala ay ugu istaagto. ilahayna arrinkaa inoo fududeeyo o hayna waafajiyo, camalka wanaagsanna ilaahay naga aqbalo. wallahu aclam. wsala allahu calaa nabiyina mxamed.